waatahay dhawaan waxaa baraha bulshada xoog ku haystay afar xaasle Sufyaan iyo anigoo dheemaas marka lagu aadi Soomaali Maryooley dagaal xoog leh dhaxmar waxa ugu xoog badnaa markii uu gabi ahaan badiida calanka Soomaali si u soo socod afar xaasle Soomaaliyeed inta badan way ka falcelinaysaa arintiisa balse ugu dambeyn waraysi badan la yeeshay ninka waxa la ogaado waxyaabo badan oo dadka ka qarsanaa laakiin waxyaabo ay ugu cajiibka waxaad Soomaalida in ay ka horeeyaan FBI iyo CIA waxyaabo badan oo ninka qarsanaa ayagaba afkooda ku soo faageen barnaamijku waa kaftan iyo kululaysi toddobaadkan aan ku xoog saari doono Sufyaan FBI iyo Soomaali Maryooley ku soo dhawaada barnaamijka magacaygu waa Maxamed Ibrahim Ayaale waatahay sida la socotaan baraha bulshada waxa xoog ku haysta dhawaanaha ninkii lagu magac daray afar xaasle ama Sufyaan oo qayb aha iyo dhanka kale Soomaali Maryooley oo geeska kala taagneed balse waxyaabo igu yaabka badnaa waxay Soomaali Maryooley in ay ka horeeyay FBI waxaan ku ogaaday waafaqeeno si u fagaayeen ninka dharka banaanka u soo dhigtay laakiin aanay dhanka kale ma ka fiirin dhankaas dhanka kale ka fiirin baraha bulshada waxa xoog ku arkay nin walba qof walba gabar walba fikirkeedii ka dhiibanaysa laakiin waa waxa uu Sufyaan rabay intaas ahayd in 30 maalmood gudahooda uu saameyn ku yeesho Soomaali maadaama Soomaali iyo hal familita wax ku ogaanaysa halkii shay la soo dhigo halka shay la wada qaybsada oo arinta waxay ahayd wax iska caadi ah laakiin waa kuma Sufyaan ama afar xaaslehan ama magacyo kale oo idinka u baxsateenba koowan waxaan ku qiyaasay ninkan waa nin wax soo bartay waa mid ugu horeyso waa nin wax soo bartay laakiin dhanka uu wax ka soo bartay ma dhanka wax ka akhriyay marka labaad waxaan ku qiyaasay ama aan ku tilmaamay ninka inuu yahay nin la soo ciilay waxyaabo badan oo ka sheekeeyay Mareykanka maruu joogo Kanada markuu joogo markii la soo tarxiilay ninka qaybta saddexaad waxaan ku magacaabi karaa ninka inuu yahay nin sirdoon u shaqeeyay laakiin aakhir saaci ka maray sirdoonka qofka markuu la soo shaqeeyo waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamid ah waa lagu fashilaa dhawaanahan uu arki doontiin waa si fiican lagu fashilaa marka lagu fashilaa adoo qaawan meel banaankaana lagu dilaa waqtigiisa dhamaad midka afaraad ama ugu dambeeya ama iska dhaynaa waxaan leeyahay ninka waa nin isku dhaxyaacay oo qayb ahaan marka loo fiiriyo waxa intaas oo dhan u leeyahay faktooyinka uu haysto markaan dib u fiirisid aanin aan raadi inta badan wax ka jira ma nin silsiladaysan oo laga soo jeebadaysan oo sidii laga cabsanay laga soo dejiyay garoonka aadan cadde sida uu sheegay xilligaasna dawladda iyo wadanka xukumaysa ana dawladda lagu wareejin oo qabiilkiisa ama beeshiis lagu wareejiyay wuxuu yiri sharciga aniga go'aankii wuxuu ahaa in sanadida soo socdo inuu ilaa intaas aamusnaado ana waxyaabo badan oo waxa jira bam su'aal iga taagan laakiin waxba ku mashquulan waa personalitygiisa waa shakhsiyadiisa barnaamijkeena waa kaftan kaliya laakiin waxyaabo cajiibka waxa kamid ahayd baraha bulshada ahayd Soomaalida iyo xoog uga qaateen way caawiyeen ninka inay banaan ku soo saaraan marka arrimo badan isku dhex yaacsan anigu ninkan intaas markii laga soo tago waxaan dhihi lahaa ninkan waa wali nin u shaqeynaya sirdoonka qaabo badan ha ugu shaqeeyo hadduu u shaqeynina waa nin siyaasado kale ka damacsan Soomaaliya in uu wax ka noqdo siyaasad ama siyaasi ka noqdo cadeenan ku haya waxa kamid ah barnaamijyadiisa wixiisa waa wax qoran alashan sida uu rabay u soconayaan sida hadda ilaa uu ka sheekeeyay xataa baalada xasuustaan uu dhowr milyan liisi xataa waa diiday maalintii aan soo bilownay arinta ah in aan bedelno calanka iyo astaanta qaranka oo u ololeyno oo ceebaha iyo ciladaha uu leeyahay banaanka aan keeno 2 bilood markii la joogay oo la arkay arintaani in ay san ahayn arin laga hor imaan karo arin xaqiiqa arin run ah arin qofna uusan diidi karin dadkii samaystay iyo dadkii u adeegayay way la soo xiriireen waxa la yiri Sufyaano waxaan rabnaa inaad qaadatid lacag $2 milyan $2 million qaado ams programkaana kaar arintan calanka iyo waxaan kaar dhiyo ilmaha leedahay reeraa leedahay afar xaas la tahay ilmaha iska biiro guriga iska iibso waji hadana marka cid u ogolaatay xalanka Soomaali qiiqil ma gali karo Soomaalida marka waxa ogaanaysa in hal xaafadood ka imaadeen waxa ka ogaanaysa ama hal magaalo aan ka wadanahay anaga dhan arinta dhan waa la soo koobay wariyaalu dilaal yiri asay afkiis ka sheeg intii ka soo baxday asaga sheeg intii ahadali asaga sheeg ugu dambeyn uu arki doontii si uu soo fagfagaa isku soo fagfaagaayna waxa la ogaan doonaa meesha saxda ah filinka filin tijaabo inuu soo dhaafi doono mar dhawaana why now marka hadda maxaa ku soo beega asaga sidoo sheegay wuxuu yiri waa u dul qaadan waa inaan ka aamuso inay noqoto ani waxaan dhihi lahaa ma aha saas
hadda waxaa ku soo biiriyey xilligaana loogu talagalay ay tahay 60 maalmood kadibna dowladda ay u dhammaan doonto waxyaabo badan oo saameyn ku yeelan doona dowladda Soomaaliya inay noqon doonto ani aaminsana waan arki doontiin qiyaasteedu waxay ku jirto ninkan damac siyaasadeed oo gaar ah inuu leeyahay wayna soo bixi doontaa damaca siyaasadeed waxaana ku xasuusan kartiin dadka Muqdisho jooga aad u yaqaano min dhagool ah oo xamar joogi jiray hadda xasuustaan dawr oo tuugsan jiray maalinkii Ethiopiankii soo galeena sargaal uu ahaa oo hogaamiye uu soo noqday dad bad yaqaanin arinta way isbedelaysa war wax badan oo Soomaalida ogaato war Soomaalida FBI si ay way ka horeysa shaqayaalo taasna cadeyn ma baahno waa arki doontiin waxyaabo cajiibka waxa kamid ah marka social media markaan ku arkay Soomaaliya aad uga hadlaysa arinta ninkan dhanka afarxaaska gabdhaha aad uga hadlaayeen markaan waxa aaminsan faktaba ama sirtaba waxa soo faga waxa ugu waaweyneedba dumarka oo ka careysna afartaas xaas ilaahayna waxa leeyahay mugtay duba markuu ku garaac meel badan ku badbaadayeen ololaha ninka wada waa inuu wax walba ceebkasan ka noqdaa ninka maanta ololahan wada arkaysin nin maanta ceebkasalina ma ahan horta ninkan asalan ninkan Mareykan uu ka imaaday waa la soo tarxiilay ka gudub 2015 gabadha hadda Maryan la baxday Canaba la dhihi jiray hadda Maryan la baxday ma aqaan meesha labada magac ka kansateen Maryan Xuseen mid ugu qoranta waa mid 15 ka guursaday wuxuu ku guursaday shakshawan xaafad la dhahayo dabaq kaniisada ka soo horjeeda ayuu la deganaa waa la yaqaan ninkaas waa nin abuse badan waa nin dib badan waa dabaqaas oo daw mas'uulka ah banaankana yaayay basalo ku gaday dabaqaas la deganaa ilaahay mas'uul looga dhigay halkaas dadka u galay marka waxyaabo badan soo bixi doona ninkan waa ogaan doontiin saacadaha soo socdo waqtiyada soo socdo maalmaha soo socdo sir badan inay soo bixi doonto ninkan inuu yahay nin damac siyaasadeed leh kow labo in waxyaabaha uu sheegay sirdoonka shaqada ay ka rabeen uu ka diidana ay been noqon doonto waa arki doonteen solutionka marka xalka meesha yaala marka maxay tahay ana xalka waxaan u hayaa laba waxyaabood oo mid koowaad in ninkan fasaxdaan inuu hadlo in wax allaal wuxuu sheegi kara uu sheego bal awood uu ku leeyahay fikir uu ka dhaadhacsiin doono ma jiri doonto dadka in calankaas uu yahay ama astaanta qofka markii loo bixiyo Ali ama Cabduqaadir ama Maxamed loo bixiyo asaga calaamad u tahay calankan wuxuu calaamad u tahay wadan inuu jiro marka jiil walba jiilka ku sii xiga waxyaabihii laga soo tagay marka taariikhda Soomaaliya inkastoo ay qorneen oo inta taalo oo naga qarsan oo maxaa leeyahay gumaysti uu naga xadayna marka oo qof walba markii jaamacadooda uu soo dhigto wax yar laga soo fahansiiyay oo mar walba ku qasaayna saameyn ku doqon maxaa leeyahay saameyn weyn ugu yeelan doonta marka waxaan dhiilaa kow hala daayo ninkan hala daayo suuraba hadlo wuxuu raba ka hadlo fasaxa hadii wax la bedelayo qaabo badan oo loo bedelaa jirto laakiin qaababku isticmaal istiraatiijiyad qurux badan ila meeko mana u maleena ama ma hal carabiya jiri jirto maxay li jiray خالف تعرف معناها dadka gadisno wax kala keen waa inuu ku soo galo afarxaas sunnadiya saanka ahayd calanka Soomaaliya saanu aha khaalif تعرف ana u fahmay uu dabay markaa soo aruuri waana iska baashaalkiina waa Soomaali Maxamed waa ninka fasaxa waa ka rayseen FBI CIA waa ka soo hormarteen ninka wax yar hal fasaxo asaga ka arki doono dib u fiiriyo su'aalaha aniga igu taagan idinkana igu taagnaan doono nin dambi ka soo gala wadan oo xabsiga wadankaas lagu heen waa Soomaaliya in lagu soo wareejiyo dawladda in lagu wareejiyo iyo in qabiil lagu wareejiyo idinkaba ka fakara barnaamijku waa kaftani kulule sooraayid kugu sheegay hadii qaab qabiil idin saameys idin taala hadaa ka heshay idin taala hadaa ka idin taala kaliya waxa waay wixii ugu jira idin laftirkiina idin kala dhacsiina idin ku shuba qaata saaxiibadii la sii gaara barnaamijka Soomaaliya waa sida hore idin kugu sheegay jimco walba barnaamijkan waa daawan doonta waa ku maasantii daawashadiin hadaa ka hesheen like ku gaarga maxaa la share gareeyo dadka kale la sii gaara laftirkooda laga yaabo inay wax ka dhacarkan waxa ka sheegay hadaa ka helin dislike hadaa ku qabo meeshii isaga tag muhiimadu waxa waa inaad fahantay ama inaad daawatay waa kaaga madcinla waqtigaaga qaaliga oo asaga laftirkiisa wax iga siisay waa ku maasantahay assalaamu calaykum nabadi warsan bye